السلام عليكم صاحبي اللي soo dhawaada mar kale kuna soo dhawaada muuqaal kale cusub muuqaalkan maanta waxaan ka eegi doonaa ninkan ayaa wuxuu ku dhex noolaanayaa 4 cisho oo dhameystiran trainkan idin muuqda ninkan waxa ku qaadanaysa in halka gaadhi 6 saacadood waxaanu ka soo dhaaqayaa magaalada Toronto ee dalka Canada isagoo sidoo kale tagaya magaalada Vancouver bilowga muuqaalkan ninkan wuxuu sheegay in wiligiiba jeclaa inuu ka dhex daawado trainka buuraha waaweyn ee baraf ku daboolay inta uu safarkan ku guda jiray wuxuu daawan doonaa buuraha ugu quruxda badan leh ee dalka Canada isagoo ku soo wareegaya sidoo kale ninkan wuxuu sheegayaa inta uu trainka saaran yahay noloshiisa ay ahaan doonto kaliya inuu wax cuno seexdo soo tooso sidoo kalena uu isku dayo inuu saaxiibo cusub ku dhex samaysto trainka oo dadka trainka uu aad loo sheekaysto sidoo kalena wuxuu sheegayaa in trainkan uu istaagi doono 7 jeer kibi ahaanba Canada uu ku soo wareegi doono iyagoona inta arki doona buuro baraf daboolay oo kaliya inaga laftirkeena in la dalxiisana ninka saaxiibayaal ee nagu soo dhaweeyay muuqaalka haddaba ugu horreyn waxaan arkaynaa ninkan inuu ka sheekaynayo inuu khalad yar sameeyay maadaama ahayd inuu qof soo kaxaysto trainka dhexdiisana uu kula dalxiiso ninkan asalkiisa wuxuu ka soo jeedaa magaalada Atlanta ee dalka Mareykanka Toronto ayuu soo gaadhay marka ugu horreynta odayga darawalka ka gaadhiga Uber-ka uu saaran yahay ayuu weydiisanaya wax talaabo ku saabsan sida uu samaysan lahaa saaxiibo marka uu trainka koro ninkan nin wanaagsan ayaa uu noqonayaa wuxuu siinaya talo fiican isagoo sheegay inuu qof fiican noqdo dadkana aanu hadalka ku badin sidoo kalena aanu ka labalabin inuu dadka la hadlo odaygana Maxamed lagu magacaabo Muslina taladiis aad buu uga helayaa waxaan oranayaa aad bay anfacday ugu dambeyntan wuxuu tagayaa stationkii trainka laga korayay ee uu ka bilaabay safarkiisa 6 saacadood qaadanaya ee Canada uu ku soo dhex marayo ninkan ayaa iskaga jira jawi aad u macaan oo iska baashaalaya kadib wuxuu fadhiisanaya meesha lagu sugaba trainka isagoo halka ku arkay video laga sameeyay 3D animation trainka uu raaci doona ugu dambeyntii trainka markii maanta ninkan isagoo aad u faraxsan trainka ayuu soo koraya trainkan uu raaci doona 4 qaybood ayuu leeyahay qaybo kala duwan oo kala lacag qaalisan ayuu leeyahay qaybta ugu horeysa waa qaybta economic loo yaqaan $500 ee lagu raaca qaybta labaadna waa Bertis waana kuraas loo bedelan karo sariiro sidoo kale laba qaybood oo kala cabin 1 iyo cabin 2 la yiraahdo iyo qaybta ugu sareysa oo Prestige loo yaqaan $800 lagu raacayo ayuu ka kooban yahay trainkani Legend-na 4 cisho trainka saaray wuxuu saarnaan doonaa qaybta cabin 2 loo yaqaan $2400 ugu dambeyntii trainka uu la dhaqaaqaya ninkan kadib wuxuu leeyahay gabadh soo kala tusta trainka oo dhameystiran trainka waxa saaran oo kaliya 80 qof maadaama imka winter lagu jiro jiilal ay tahay laakiin marka Google lagu jiro ilaa 500 qof ayaa kora waxaana la soo wada tusayaa dhammaan qolalka uu ka kooban yahay meel wax lagu cuno meel kafeega lagu cabo meel geemka lagu ciyaaro trainkan gabigiisu waxa soconnaa boo guri maadaama loogu talagalay inuu maalmo socdo sida daraadeed qof wax ka soo baahan uu ka heli karaa ugu dambeyntii gabadh waxay geynaysaa halka ugu horeysa oo magaalada si fiican uga arki karto gaadhi caadi la moodaba inkastoo trainka imka magaalada Toronto uu dhex marayay oo aanay gaadhin meelii ka baxsanaa magaalada ninkan wuxuu sheegayaa in imikadan buu aad u si faraxsan yahay sidoo kalena waa aad ugu farxi doono marka buuraha la gaadho Legend-kana waxa sidoo kale anfacday taladii uu ka soo qaatay ninkii muslimka ah ee Uber-ka watay qof walba oo trainka saarnaan uu la hadlayaa isagoo ka labalabeynin dadkana wuxuu sharaxayaa in YouTube leeyahay muuqaalanooyinka uu duubayo kadib waxay gaadhaysaa waqtigii la cunayay cuntadii ugu horeysay trainka laga cuni lahaa si jamac ayaana loo cunayaa oo dadka qol ay isku wada yimaadeen qof walbana qof aan u garanayn ayuu la fadhiisanayaa Legend-kana naag yar Chinese la fadhiisanayaa ninkan aad ayuu iskaga faraxsan yahay marka dambe daaqada iska daawanayaan gabadhina si fiican bay wada sheekaysanayaan dadkan trainka iskugu yimid aad ayuu wada faraxsanaayeen Legend-kana xaraabo haba gabigiisu uu qooslinaya dadka su'aalo maadaama la isweydiinayo kadib habeenkina trainku yara istaagaya Legend-kana dibadda u yara baxaya aad bay qaboway dibaddu qof facbu iskala garan waaya temperature-kana markuu dadka tuso 7 degree ayuu marayay sidoo kalena kala South Korean ay marka dambe isbaranayaan trainka dhexdiisa dadka ayna sawirtaa si live sawir yar xaraaba ay isagana ka sawiraysaa kadibna cashadii baa la cunayaa sidoo kalena oday ag fadhiyay inuu xaraabeynayay kadib qolkiisii raw iskaga soo noqonaya badhan ayaan taabanaya si uu ninka ugu yeedho si uu ugu soo saaro sariirtiisii waanu soo saaraya ugu dambeyntii habeenkii ugu horreeyay halkaas ayuu ku seexanayaa isagoo sheegay inuu maalin fiican soo qaatay kadib maalinta labaad subaxii dambe ayuu soo toosayaa hurdo macaan inuu seexday ayuu sheegayaa kadibna kafee buu soo doonanayaa waxaanu soo fadhiisanayaa hadana meeshii wax lagu cunayay ee dadka oo dhan wada fadhiyeen halkan quraacdiisa ayuu ku cunayaa meeshii yarada xagga sare trainka ku taalay gaadhiga la mooday wax walba laga arkay ayaanu soo fadhiisanayaa si buugiisa u akhristo markuu quraacda soo dhamaysto safarkoodina uu soo dhawaaday galbeedka Ontario ay soo gaadheen wali buurimay gaadhin laakiin dhul badan oo baraf ay uu daaqada ka daawanayay kadib trainka mar labaad ayuu istaagay ninkana jaakadiisa ayuu soo xidhay dibadda ayaanu soo baxay laakiin baraf waali ayaa ka dhacaya markasta dibadda soo baxay ninkan uu qufacayay kadib sidoo kale wuxuu exercise la sameeyaa dadkii ka soo degay trainka maadaama cimiladu ahayd mid aad u qabow dadku waxay isku dayayeen inay iskuleeyaan islaawin ayaanu exercise la sameeyay sidoo kale dadka trainka saaranay maadaama ay u badnaayeen dad waaweyn dadka ninkan la sheekaysanaya ama exercise la sameeyay dad waaweyn ay noqonayaan kadibna trainka ay ku soo noqonayaan gudaha ay soo galayaan si ay qadadii u cunaan markana qadada ninkan waxa uu la kulmayaa 3 qof nin lagu magacaabo John iyo aabihii iyo sidoo kale islaantiisii odayga Jim lagu magacaabo ayaana ninkan uga sheekeynaya inuu marar badan ku riyooday inuu samaysto podcast oo YouTube-ka uu ka samaysto odaygana ninkan wuxuu sheegayaa inuu shaqada ka fadhiistay oo retire garoobay kadib markuu waqti fara badan ka soo shaqaynayay inuu dhigo philosophy-ga nin professor ayaanu ahaa waqtigan wuxuu rabaa inuu podcast samaysto maadaama uu ka fadhiistay kadibna odaygan wuxuu qorayaa warqad yar oo ku caawinayo waxyaabo
u isticmaali lahaa applicationada sidoo wuxuu dhigtirayn lahaa odaygana wuxuu sheegay inuu aad u caawin doono sidoo kale odaygana wuxuu ka hadlayaa AI-ga iyo sidoo caawiyo inuu research sameeyo ninkan marka dambe wuxuu la yaabayaba odaygan da'diisa marka loo sheego isagoo odaygan bilaha nagu soo aadan da'diisu ay noqonayso 91 jir waxaan la yaabayaa odayga da'dan jira inuu ChatGPT waxyaabaha ka hadlayo odayga wiilkiisuna wuxuu sheegayaa sababta ay trainkan u saaran yihiin inay tahay inay odayga u dabaaldegayaan dhalashadiisa 91aad kadibna waxa la gaadhayaa ninkan waqtiga uu shower ka qaadan lahaa markii ugu horeysay isagoo train ka saaran inkastoo xamaamku ku yaraanayo laakiin haddana shower fiican ayuu kasoo qaadanayaa kadib markana trainka ninkan uu kasoo degayaa oo istaagii saddexaad oo qofku dibadda iska soo wareegi karo meel magaala maadaama marayo 30 daqiiqo ayaa qof walba la siinayaa ninkana dibadda ayuu soo baxayaa waxaanu soo dhex marayaa magaalo barafku madaxa ku qarxinayaba dad soo dhex marto markuu qabow dhiman gaadhan trainkiisa ayuu iskaga soo noqonayaa isagoo soo qandhooday kadibna 2 gabdhood kale ayuu meesha kula cashaynaya cashadii maalintii labaadna sidaas ay ku dhammaanaysaa maalinta saddexaad markuu toosana wuxuu eegayaa cimilada -14 ayna maraysay kadib quraacdiisa ayuu iska soconayaa gobol kale ayayna soo gaadheen Kanada ka tirsan ninkanna jawi degan ayuu iskaga jiraaba xataa journal ayuu iska samaynayaa daaqadana wuxuu ka daawanayaa cimilada kadib haddana ninkan wuxuu la samaynayaa exercise islaantii hore uu la samayn jiray markasta trainku istaago kadib mar labaad odaygii weynaa ayayna isku imanayaan iyagoo waxooda cunaya marka dambena islaan ayuu la toliyaaba maryo gacanta lagu sameeyo maalinta inta dhannaydna qolkiisa yar ayuu iska soo geliyaa isagoo hees ka samaysanaya habeenkii marka cashada la gaadhana odaygii kale uu ka helayba odaygan khibradna uu rabo inuu ka faa'iidaysto ayuu la cashaynayaa waxaanu sheegayaa in wada sheekaysigoodana waa wada sheekaysigoodii ugu fiicnaa isagoo weliba sheegay inay cajiib ahayd in saddexdooda da'doodu ay u kala dhaxayso 30 sano maadaama isaga da'diisu 30 sano tahay odayga inankiisa John lagu magacaabanayo isaguna 60 jir uu yahay odaygana uu 90 yahay sidoo kalena wuxuu sheegay inay iska xog wareysteen waxyaabo ku saabsan aabanimada qofkana aabiyaanu noqon karin aabihiisa dhabta u dhalay sida ninkan madow iyo odaygan cado kale waxaanu sidoo kale sheegay in waxyaabo fara badan uu ka faa'iiday maalintii saddexaad halkaas ay ku dhamaanaysaa habeenkii uu seexanaya maalin afraad uu soo toosaya waxyaabo maalinta qaban doona uu sheegaya isagoo sheegay in odaygii 90 jirka ay u sameyn doonaan surprise dhalashadiisa maadaama maanta ku beegan tahay magaaladii ay ku socdeen ee Vancouverna dhowr saacadood kaliya ay u jirtaa oo waxay soo gaadheen meel u dhow kadib wuxuu isku koriyay xaggii sare isagoo wax iska qorqoraya meel barafku aad ugu badayeen markan marayeen waxaanu sheegay inuu ka cabsanayeen waarki waayay barafka maadaama daruuro dabolayaan kadib ugu dambeynta waxay go'aansanayaan in odayga ay dhalashadiisa surprise ku sameeyaan gabadhii wax sawiraysiina odaygii inta la jeediyay ayaa lagu yiri sawirkiisa sawir oo si fiican u sawir kadibna sidoo kale waxay u diyaarinayaan in dadkii inta uu trainka odayga ku jiray ay saaxiibka noqdeen in dhammaantood ninkan la wadaagayo inay hal mar ku qayliyaan marka uu soo galo qol ay iskugu tageen dhammaantood ugu dambeyntina odaygii waxay soo gelinayeen inankiisi John mar kaliya ayaana lagu odhanayaa surprise odaygana oday xaraabaab waa laftirkiisa wuxuu iska dhigayaa mid suuxay kadibna birthday ayaa loo qaadayaa odaygu legend dhalay buu ahaa jawigu kama qasnaynba si macaan ayuu ka gudoomiyaa birthday-ga odayguna ninkan aad ayuu uga helayaa maadaama meesha isku dhex barteen isagoona sheegaya inuu wiilkan aad uga helay sidoo kale wiilkiisana wuxuu la wadaagayaa waxyaabo ku saabsan nolosha qaybtan ayaan ahayd qaybtii ugu xamaasada badnayd iyagoo qaybtii ku jirana trainka wuxuu soo gaadhayaaba buuriyuu ninkan inta badan sugayay ee barafku daboolay isagoona duubanaya muuqaaladan quruxda badan leediin muuqda ugu dambeyntina waxay soo gaadhayaan meesha ay rabeen dhammaanba dadkiina way wada macasalaaminayaan sawiro fara badan ayayna isla gelayaan momentiska ugu quruxda badnaa ee uu la soo qaatay dadkan ayaanu kusoo koobayaa muuqaalka ugu dambeyntiisa saxbiyaal haddaba haddaad ka hesheen muuqaalkan fadlan subscribe noo saara sidoo kale muuqaalkana like saara